الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض دعوة يالي دلهان تيمبا ميل كستاك جوكتان هالكاني waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV studio koobaad ee magaalada Burco. Daawadayaal waxa la soo gaaray waqtigan hawadeedii soo marin jirnay war wixii dalka gudaha iyo dibadda naga soo gaaray qodobada warka. Qaar ka tirsan waxgaradka cuqaasha iyo waliba dadweynaha ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Caynaba ayaa iyaguna taageeray shirkadda leerka ee Badar taasoo dhawaan telefishinka Somali Channel ka baahiyay in ay dadweynaha ku dhaqan magaalada Caynaba ay sixir barar ku hayso. Ra'iisul Wasaaraha Dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isaguna khudbad ka jeediyay ururka qaramada midoobay xarunta ay ku leeyihiin magaalada New York ee dalka Mareykanka. gabar suxufiyada oo ka howlgashay idaacad ku taala magaalada Galkacyo ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa iyaduna lagu dhaawacay magaaladaasi. dagaalo waaweyn ayaa ka socda magaalada Yemen caasimadiisa Sanca taasoo ka dagaalamayaan ciidamada taabacsan madaxweynaha dalka Yemen Cali Abdallah Saalax iyo mucaaradka dalkaasi. madaxweynaha dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa la filayaa inay saacadaha soo socda booqdaan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadan caawa warkeedii ku hayno imikii haatan oo diyaar garooba oo warkii fidsan. qaar ka mid ah waxgaradka aqoon-yahanada iyo waliba maamulka dawladda hoose ee degmada Caynaba ayaa taageeray shirkadda leerka ee Badar taasoo dhawaan telefishinka Somali Channel sheegay in shirkadaasi ay hagardamo iyo waliba sixir barar ku hayso dadka ku dhaqan magaalada Caynaba. qaar ka mid ah duqeyda culimo diinta iyo maamulka dawladda hoose ee magaalada Caynaba ayaa maanta beeniyay warar dhawaan laga baahiyay TV-ga Somali Channel kuwaas oo lagu eedeeyay shirkadda leerka bixisa ee Badar inaanay u turin shacabka marka la eego dhinaca sixirka. duqeydan iyo waxgaradkan oo maanta shir jireed oo arrintan kaga hadlayaan ku qabtay gudaha magaalada Caynaba ayaa waxay TV-ga Somali Channel ku eedeeyeen inuu khalkhalgelin dhinaca ganacsiga ka wado magaalada Caynaba. shirkan jireed oo sidoo kale ay ka hadleen mas'uuliyiinta shirkadda leerka bixisa ee Badar ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyay. ugu horreynba xogayaha dawladda hoose ee magaalada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse oo ka hadlay shirkan jireed ayaa sheegay inay ka maamul ahaan ay abaal weyn u hayaan shirkadda leerka bixisa ee Badar oo tilmaamay inay tahay shirkaddii ugu horreysay ee leerka keenta magaalada Caynaba. Sheekh Maxamed Sharaad Khare maamulaha shirkadda Telesom ee magaalada Caynaba oo isaguna shirkan jireed ka hadlay ayaa sheegay shirkadda Badar inay ku habboonayd in la siiyo shahaado sharaf maadaama ay tahay shirkaddii leerka keentay magaalada Caynaba xilli magaaladu aanay lahayn wax leydha. sidoo kalena qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka magaalada Caynaba iyaguna shirkan jireed ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida shirkadda leerka ee Badar ay ula shaqeyso macaamiisheeda magaalada Caynaba isla markaasina tilmaamay inaanay ahayn wax loo dulqaadan karo waxyaabahan uu ku kacay TV-gan Somali Channel. waxaana ay ku dheeraadeen shacabka magaalada Caynaba aanay marnaba ilaawi doonin abaalka ay shirkaddani gashatay shacabkeeda. hore ee ugu baxay ama eegin nama daawan ruuxantii way jirtaa oo wixii jira la isu sheego waa muhiim oo horumarkay ka qayb qaadataa iyo dhaliilaha in la isu sheego aad iyo aad u fiican tahay waxyaabo wixii jira laakiin waxa weeye ruuxantii ma habboona waxyaabo aan jirin in wax laga daydayo waliba saxaafadu ay baarbaadho wixii jira waa loo baahan in la sheego u baahan haddii la guriga baraarujin ama dhaliil oo mas'uuliyiinteeda loo sheego oo u fiican tahay laakiin waxyaabo aan jirin haddii la sheego ma haddaan in yar dib u raaco 2003 iyadoo magaaladu madow oo aan tuulo ah degmana madow aan nalba lahayn oo faynis la shtabu ninka Xaaji Badar ilaahay khayriisa noo yimi dalban keenaya buuri magaaladan la tusnay sidii uu ku keenay ilaa maanta 2003 iyo maanta ay tahay 2011 8 sanadood magaalada nalkaas wuu baxayay in marka meel madow ayuu nuuriyay abaal baanu Caynaba ku leeyahay saan anigu qabo
abaal buu ku leeyahay ama ay tahayba qaba maahe abaal buu ku leeyahay caaqil maxamed darood ducaale waxaan ka mid ahay waayeelka gobolkan Saraar magaalo madaxdiisa Caynabo shirkaddan Beder sida uu sheekhu sheegay Sheekh Maxamed sheegay 2003 bay timiyadu kharaabad la moodo haddii qoraxdu jirto magaalada ay degmana tahay ilaa iyo maantana isagaa shiraadayay oo gobol bay u eekaatay waxaan halkan kaga hadlo warkii baahiyey telefishinka Somali Channel 9 bishii September warkaasi waxa uu ka hadlayay inay kala cabanayaan macaamiisha iyo shirkadu ay macaamiishu ka cabanayso marka ay cabanayso macaamiisha cabanayso annaga noo soo caban lahayna Somali Channel ma yaawdo halkan waxaan ku sheegaynaa warka baxay TV-ga channel warkaas oo ahaa war been abuura oo aad iyo aad wax ku hadlayna ay wax ka jiraan ay tahay wax aan jirin marka waxaan ku beeninaynaa warkaas warsal iyo raadkuna maaha qaar ka mid iyaguna ganacsatada magaalada Caynabo ayaa ka warramay shirkadani ay si fiican ugu adeegto dhinaca leydhka shirkan jarayd ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii dhawaan TV-ga Somali Channel laga baahiyay eedeymo loo soo jeediyay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee magaalada Caynabo gabar suxufiyada oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgasha idaacadaha ku yaala Galkacyo gaar ahaan qaybta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu dhaawacay magaaladaasi Galkacyo warbixinta warkani waxa uu ku galaya wariye Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British wararka naga soo gaadhay magaalada Galkacyo ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay gabar suxufiyada ka howlgali jirtay mid ka mid ah ilaacadaha magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug oo lagu magacaabo Xiriye Cabdiqaadir ayaa xalay fiidnimadii lagu dhaawacay xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo oo qaybta ay ku maamulo magaaladaas maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dhaawacani loo geystay suxufiyadani ka howlgasha magaalada Galkacyo ayaa timi kadib markii nin baastoolad ku hubaysnaa weerar ka soo qaaday xilli ay dhex lugeynaysay halka loo yaqaan Cagar Weyne oo ka tirsan xaafadda Garsoorkaas oo dhowr xabadood ku dhuftay kadibna goobtaas degdeg ah uga cararay sida ay goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen TV-gan madaxa bannaan ee Bulsha TV ayay sheegeen in gabadhan loola cararay cisbitaalka waqooyi magaalada Galkacyo halkaas oo gurmad caafimaad ay ka heshay waxaana dhakhaatiirta cisbitaalku sheegay in nafteedu aysan khatar ku jirin inkastoo aysan ay qabto dhaawacyo kala duwan xaaladeeda caafimaadna ay hadda soo hagaagayso ilaa iyo hadda ma jiraan warar rasmi ah ka soo baxaya saraakiisha booliska iyo mas'uuliyiinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland lama oga sababta gabadhaasi wariyaha weerarka loo geystay asayeeshee falkan ayaa qayb ka ah dilal iyo qaraxyo ku soo laalaabanaya magaalada Galkacyo ra'iisul wasaaraha dawladda ku-meel gaadhka ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isaguna khudbad dheer ka jeediyay aqalka qaramada midoobay ee ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka qayb galay shir ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka asagoona halkaasi ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo waxa hadda ka taagan ee loo baahan yahay in la sameeyo gurmad Soomaaliya khudbadda uu ka horjeediyay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa uu sheegay ra'iisul wasaaraha in Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar dhinac walba dhanka ammaanka loogala qayb qaato si Soomaaliya ay noqotay meel nabad ah oo la isku haleyn karo ra'iisul wasaaraha dawladda ku-meel gaadhka ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay guulihii ay dawladdu ka gaadhay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoona sheegay in bil iyo bar asagoo xukuumaddu hayo al-shabaab dalka ka saaray maadaama uu yiri inay arkeen cadaadis xooggan oo kaga yimid ciidamada dawladda oo heegan u ah inay naftooda u huraan inay al-shabaab ka xoreeyaan dalka asagoo hadaladiisa sii wata ayaa ra'iisul wasaaraha uu sheegay in Muqdisho ay u sameeyeen ciidamo gaar ah oo noocyo badan ah kuwa ammaanka suga kuwa dharcada oo maalinkii oo dhan roonda sameeya iyo kuwa ilaaliya qaaska ay wadaan kooxda al-shabaab waxaana uu sidoo kale Gaas shaaca ka qaaday arrimaha abaarta iyo gargaarka ay Soomaaliya u baahan tahay waxaana uu sheegay in Soomaaliya lala soo gaaro gargaar degdeg ah si loo badbaadiyo dadka gaashada iyo abaarta ay ku dhimayso caasimadda Soomaaliya Muqdisho dagaalo xoogan oo u dhaxeeya ciidamada taabacsan madaxweynaha dalka Yemen Ali Abdullah Saleh iyo mucaaradka dalkaasi Yemen ayaa ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Yemen
waa kan mar kale wariye maxamed ibraahim xasan maxamed british. ciidamada ammaanka ee xukuumadda dalka Yemen ayaa maalintii shalay ahayd koonfurta gobolka Abyei dagaal ka dhacay waxay ku dileen ilaa 12 ruux kuwaas oo ka tirsanaa maleeshiyeedka kooxaha mintiinta ee ka soo horjeeda xukuumadda dalka Yemen xiriirna la leh ururka Al-Qaacida. saraakiishan oo hadashay ciidamada ammaanka ee dalka Yemen ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay gacantooda ku dhigeen magaalada Sanbidaad iyo weliba qaybo badan oo kamid ah gobolka Abyei sida ay sheegeen saraakiishu waxaana dhawaanahanba gacanta ku hayay ka soo horjeeda jiritaanka dawladda dalka Yemen magaaladaasi. inta uu dagaalkan ka socday koonfurta gobolka Abyei ayaa waxa sidoo kale qaraxyo lala beegsaday maalintii Arbacada ahayd qowmihii booliska iyo weliba sirdoonka magaalada Cadan iyadoo qaraxyadaasna ay ahaayeen kuwo burbur aan xooggan u geystay gaarihii halkaas ku yaalay. waxa sidoo kale lagu soo waramayaa in magaalada Sanca ee dalka Yemen in dagaal ku dhex mareen ilaa iyo maalintii Isniinta ahayd ciidamo ka tirsan xukuumadda dalka Yemen iyo maleeshiyaadka ka tirsan mid ka mid ah qabaa'ilada ka soo horjeeda dawladda dalka Yemen waxaana dagaaladaasi socday ilaa Isniintii ay ku soo dhamaadeen ilaa iyo 10 ruux oo ku geeriyooday dagaaladaasi. madaxweynaha dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socdo booqdaan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya taasoo dhawaan laga saaray ciidamadii taabacsanaa Colonel Muammar al-Gaddafi haatan ay gacanta ku hayaan xoogagga mucaaradka ee dalka Liibiya. dawladda dalka Faransiiska iyo Britain ayaa kuwii hore ugu ololeyn jiray in ciidamada NATO ay dagaal ku qaadaan madaxweynaha dalka Liibiya Colonel Muammar al-Gaddafi. wararka ka soo baxaya dalka Faransiiska ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron ay maanta booqasho ku tagi doonaan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya. mas'uuliyiinta booliska ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in booqashadan ay ka warameen saxaafaddu ay isla markaana ay 160 askari oo booliska Faransiiska ay u dirayaan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya si ay u sugaan ammaanka magaalada. mas'uuliyiinta halkaasi booqanaya bogga wararka Faransiiska ee Marine ayaa sheegay in dalka Faransiisku diyaariyay magaalada Tripoli la askari oo booliska kuwaas oo indhaynaya xaaladda ammaan ee garoomada hoteelada ay mas'uuliyiintaasi tegayaan iyo weliba wadooyinka ay marayaan. dalka Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa ahaa wadamadii hormuudka ka ahaa dagaalka ay ciidamada NATO ku qaadeen dalka Liibiya ee lagu riday hogaankii hore Colonel Muammar al-Gaddafi oo imika ciidamadiisu ku sugan yihiin goobo aad u yar oo dalka kamid ah. madaxweynaha Faransiiska Nicolas Sarkozy iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron ayaa booqashadan ku doonayay inay caalamka ku tusaan in dagaalkii ay ku qaadeen Mr. Gaddafi ay ku guuleysteen isla markaana ay soo afjareen dagaalkii dalka ka socday muddooyinkii ugu dambeeyay. mas'uuliyiinta cusub ee dalka Liibiya ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inay booqashada la isku afkartay laakiin aanay 100% ahayn inay mas'uuliyiintaasi soo booqdaan dalka Liibiya waqti xaadirkani. warkii waad kala socoteen telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV gaar ahaan stuudiyihiisa koobaad ee magaalada Burco. dabcan warka waxay la socodsiinayay anigoo Cabsaaq Farax Cabdilaahi intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waa aniga iyo dhammaan barbaarta bahda Bulsha TV oo idinku dhaafay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.